والله أود إذا وحنا قياسها وحيتها هي إن توبرد كلا دوبن سيان دولتها عالم كا مالي والله وحاول عتبية لصحراء عيدنا الله توبرة دلكنا وحاجة أجانبها جوتو دولتها كلا تو شيء وحديار نوليهن إن عيدنا كإنسانه معناها توبران مركز شلي هدية توبر في عن أنا هيسن ما أنت توبر في عن واحد سنة حتى جودها يدل كبا عيدنا كانوا والله توبرة وحواي أود اللي بحيدنا وحواي مركز سيدنا بيسا وسيسر هسا ciidamada la wareegaya amniga Soomaaliya xarumaha ugu waaweyn ee dalka looga arrimiyo qaarkood sidaan la socono waxa laga saaray ciidamada ADMIS waxaana gacanta loo geliyay ciidamada dalka taasina waxay ku tusaysaa in hadda soo kabasho fiican oo dhanka amniga ah aan sameynay sidaas la ajligeed xilligan waxa la joogaa ama la gaaray Soomaaliya waqtigii ay isku filnaan lahayd dhanka amaanka marka ay tagto gacan kalena ay dhihi lahayd aad u mahadsantihiin waqtigiinana uu dhamaado no inay baxaan ku taageersan inay joogaan ku taageersanahay no wadankeena bilicdooda waaye shacabkeena soo difaacooda waaye wallahi boqol ciidamada Soomaaliya boqolkiiba boqol waa aaminsanahay amniga haddaba waa u jeedin madaxtooyada dhammeed meesha dhan wadanka laga arriminayo la wareegeen boqolkiiba boqol ay ka dhigeen waan aaminsanahay dhammaan inta soo hartan in la wareegi karaan waan rajaynaa insha Allah وأمسنا بقولك بقول وأوجد هذا في الصومالي ماشنا وضك لقى أريميناي إلا وريجين مو أنا مدو أنت أصاب بلي هايان أنت صورتنا وعاب إسك إيزي وأنا لا وريجنا إن شاء الله عانسليا عندما الدولة الصومالية أمني ويل وريك التعمر كان سيدي هور معهن حال ديور ويكسو قدبتي ملجو لو كن كوي توان أما لو كن يوم حتى شنتي ملجو وحاجران دور عيدن كلا دوان haddii ahaan lahayn military haddii ahaan lahayn police military marka waxa aaminsanahay in amniga maxay tahay kuwaas ay sugi karaan sidoo kale haddii ciidamada la sii kordhiyo tababarkoodan maxay tahay loo sii wado loo sii kordhiyo waxa aaminsanahay in wadankan si guud ay u qaban karaan laakiin ma aaminsani in maxay tahay Ugandeskan ama midowgan Afrika inay wadankan amnigiisa sugayaan ama wadankan amnigiisa inay dib loo keenayaan wax kaliya ana aaminsanahay waxay tahay amniga wadankan si loo helo waxa ka shaqeyn karo dawladda ama ciidamada Soomaaliya had salahan dadkan la dhahayo waxay u joogaan Allah amniga inay sugaan waa dad maxay tahay aanan tababarneen sida maxay tahay dad qaar ay sheegaan dad aanan tababarneen meesha ku imaanayaan salahan hadda xilligii boolmareer camaleed xirada dad joogeen waxa la sheegay naago badan inay joogeen meeshii naaga badan oo Ugandese ah joogeen kaliya bas waxay fiirsanayaan lacagtaas ay qaadanayeen ee mooyaane wax shaqo ah iyo wax amni ah meeshaan ay u maadeen ma jirto marka waxa waa dee baxaan ciidamada dawladda Soomaaliya lacag fiican helayso waxa aaminsanahay ciidamadan shaqadooda inay maxay tahay oo ay sii horumarinayaan waa maasintiin marka waxaan ku qiimeeyay aragtida inay ku filayeen haddii loo madax banneeyo inay ku filayeen kana soo baxayaan xilkasnimada inta ay ciidamadu inta leeyihiin waa way hanan karaan way u diyaar garoobeen waan ku hawl jiraan waxa naga maqan way ku hanan karaan waxay ku haran karaan inay hub helaan ciidamada Soomaaliya inay hub helaan oo hubkan qafiifka ay haystaan hubka roon ay helaan ay cadawga iskaga celshaan ayaan rabnaa xaqiiqatan mid jirto waaye laba ciidamada Soomaaliya inay amniga dalka la wareegi karaan waa muuqataa labadii sano ugu dambeysay howlgalladii ay sameynayeen ayaa waxa moodaa inay farqi weyn u dhaxayso muhiimadda iyo dibadhiska ay dawladda xoogga ay gelinaysana waxaan isleeyahay waa ku filannahay boosaskii AMISOM laga bixiyana sidaan wada ogsoonahay gobollo badan oo baalka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayay laga saaray ciidamada AMISOM waxaana la wadeegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya marka ma loo baahna AMISOM inay sii joogto 2024 ciidamada amniga haddii maxaa la yiraahdo ciidamada Soomaaliya haddii maxaa la yiraahdaa la kasbado dareenka shacabka dhaqaalahana kor loo kobciyo waxaan aaminsanahay inay ku guuleysan karaan laakiin asbaabaha hadda muuqato ee ah dadka maxaa la yiraahdaa tabarta yar leh in la dhameystiro kuwa noolna kor loo sii qaaday maxaa la yiraahdaa noloshooda ninka tabarta yar lehna
in la dhammaystiroo la dilo ninka naaxayna loo dhammaystira dabaqa duulaa 2 dabaq looga dhigo inta barnaamijka nuucaasa lagu jiro qarannimada iyo dawladnimada iyo hadafka la leeyahay midna la gaari maayo maatidii dadkii yaryaraa waa baaba dadkii waa weynayna koray u sii socdaan koraa loo sii qaadaa inta laga fakaraayo nin waxaysta wax loogu daro niman waxaystana inta u haysta inta laga qaado la dhammaystiro waxbana guulaa lama gaari karaayo dawladnimaduna mid aad u hoosaysay noqohe boqolkiiba boqol inay ku guulaysan karaan aan aaminsanahay amniga Soomaaliya haddii ciidamada Soomaaliya gacanta laga saaro sababta waxay tahay ciidan tayaysan oo qalabaysan oo tababaran oo hagaagsan ay maanta Soomaaliya leedahay oo lagu kalsoonaan karo si fiican ay u diyaar garoobeen waxa ay hadda sameynayaan marqaati ka ah meel kasta oo Soomaaliya kamid ah maanta dagaal ka socda ciribtiraana ka socda admisna kamid ma aha admis xalan ay joogtaa way la wareegi karaan ciidamada dawladda Soomaaliya sabaan way la wareegi karaan ma sha Allah aad iyo aad inta ka sii badanna inay sii gaarna waa rajaynaa ciidankana Soomaaliya oo lagu filayaa anaka dalkayna difaac karna cirka mineetaan dhulka mineetaan ka difaac karna qiimaha awood ahaan waxa lagu soo dhigay waa arkaysaa dahjirka dalsoon dahjirka waxa lagu soo dhigay bandhigayso arkaysa intaas ka badan oo inuu xareysan tahay marka soo anaka isku filan Soomaaliyana dalka anaka iskale anaka isku filan